walaalkeen gudoomiyaha ururka komishanka ururka midowga Afrika Maxamed Ali Yuusuf oo nasiib wanaag xilka markuu la wareegay dalkii ugu horeeyay oo booqdo 54 wadan ururka ku jirta Soomaaliya ay noqotay waan ka mahad celinaynaa ururkan oo mahad celinaynaa Maxamuudna oo mahad celinaynaa in uu Soomaaliya uu siiyay muhiimadaas ay leedahay ururka midowga Afrika iyo Soomaaliya cilaaqaadka u dhaxeeya aad iyo aad ayaa loo garanayaa Soomaaliya waxay ka mid tahay aasaasayashii ururka midowga Afrika maanta jira kii ka horeeyay ee ahaa OAU oo ay ka ahayd founding member waxa loo yaqaano ama asaase ururka sidoo kale Soomaaliya waxay taariikh dheer ku leedahay dib u xoreyntii qaaradda Afrika 1970kii iyo 80meeyadii wadamadii Afrika ee halgamaya beriga ayay hormuud Soomaaliya ka ahayday xoreyntoodii runtii qayb weyn ka qaadanay 1974kii waatii shirkii midowga Afrika lagu qabtay xamar Mogadishu Declaration waatii laga soo saaray oo dhammaantiis intiisa badan ku jihaysneed xoreyntii Afrika taariikhdaas ayaa Soomaaliya Afrika ay la leedahay chairperson cusub inuu taariikhdaasi xushmeeyay Soomaaliyana uu soo booqday aad ayaan uga mahad celinaynaa hase yeeshee meeshaas kuma ay akaanin Soomaaliya markay duruufihii gaarka la kulantayna ururka midowga Afrika waa u istaagay asaguna Soomaaliya in uu garab istaago waqtiyada ay duruufaha adag ku jirtay laga soo bilaabo 2007 waqtigii Soomaaliya ay duruufaha adag iyo nimankan xaq jirka ay Soomaaliya soo galeen ilaa iyo maanta ururka midowga Afrika uu garab taagnaa iyo xubnaha ururka dawladaha ka aba Soomaaliya waxaa loo huray dhiig badan waxaa loo huray nafaf badan oo Afrikaan ah oo muhiimadda ay lahayd ay ahayd bas inay Soomaaliya ay dib u cageed isugu saarto waa ka mahad celinaynaa waana aqoonsanahay abaalkaas Soomaaliya loo guday ama loo geystay mishinadii Soomaaliya soo maray iyo midka hadda cusub ee imaanay intaba mid walba caqabado iyo culeysyo badan oo hortaagan way jireen laakiin kuwii horeba way ka soo gudbeen kanna Ilaahay idinkiis way ka gudbayaan kalsooni badanna waa qabnaa hoggaanka mudane Maxamuud in uu caqabadahaas jiro waxa uu naga gudbin doono annaguna aan kala shaqayn doono si rasmi u buuxdo waxaan rabaa Maxamuud inaan u ballan qaadno dalka Soomaaliya in uu mar walba doorkiisii ku saabsanaa roolka uu ku leedahay midowga Afrika inay u taagnaa doonto hoggaankiisana maadaama aan boqol ku qanacsanahay aan garab istaagi doono. It's a great opportunity for Somalia and for me to receive today His Excellency Maxamed Ali Yuusuf, the new chairperson of the African Union. Very much grateful for him to make Somalia the first country visited after he took over the office. Somalia and the African Union has a long history. We are, as Somalia is a founding member of the Organization of the African Union, OAU, an active member now, the African Union as well. Somalia has participated actively in the liberation of Africa in the 1970s and the early 80s, and we have contributed a lot. Today, Africa has paid back us, sacrificed the African boys and the African girls who came to this country to support Somalia to stand its own feet again. We really recognize and appreciate that level of sacrifice that the African Union and the member states of the African Union has made for Somalia. Today is another great day that we had a new leadership and a new mission, which we hope that will finish the task that has been assigned the African Union 18 years ago. Somalia has proven to be a very successful experience, an experiment for the African Union as the African problems for the African solution for African problems, which has been proven
that it is a fact and doable, and Africa can do and solve its own problems, of course, with the support of the international partners and the international community as well. We're looking forward the new mission will succeed and achieve its objectives under the leadership of His Excellency Chairperson Mahmoud, and we are very much grateful for that. Your Excellency, welcome to Somalia again. We are very much grateful that you are here. Thank you very much. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya holka horiyo horaanta waxaan doonayaa inaan mahad u jeediyo madaxweynaha mahaddaasi ugu horeyso waa soo dhaweynta quruxda badan ee ka muuqato walaaltinimadu lanagu soo dhaweeyay maanta reportka aadan cadde aniga iyo wafdiga ila socda talabaad mahad gaara ayaan u sidaa isaga aan u fidinayaa waayo madaxweynihii ugu horeeyay ee taageerada ii fidiyay kolkaan murashaxnimadeedii aan ku dhawaaqay si qoraal ah ayuu ugu gudbiyay waadna ogtihiin marxaladahaas ay soo martay taageeradaasi kolka aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane madaxweyne talabaad walaaltinimada ka dhaxaysa dalkaygaan ka soo jeedo inkastoo maanta aan gudoomiyihii guddiga ururka Afrika aan madax u ahay gudoomiyihii aan u ahay haddana shucuurtaas waan qabnaa walaaltinimadaasi halkii bay taagan tahay kolka haddii aan booqashadeedii ugu horeysay aan dalalkan ku tago aan ku bilaabay Soomaaliya waxay ka tarjumaysaa ama tusaale u tahay ahamiyadda aan siinayno Soomaaliya haddii aan nahay ururkii Afrika midowga Afrika tasaddexaadna waxaad ogaatiin mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisii iyo xukuumaddiisii hawlo badan bay soo galeen nabadii bay soo dejinayaan sidii runta la dagaalanka argagixisadana meel fiican bay kaga jiraan maanta sumcaddii iyo magacii Soomaaliya heer sare u socda igama aha yani hadal sidaan u tuurayo sidii runta haddii la yidhaaho qaantii iyo deyntii Soomaaliya gula in badan baa laga masaxay taasina waxay ku tusaysaa dib u habeentii sidii maaliyadda dalka loo maamuli lahaa dib u habeentaasi dayactirka ay maaragtay ay ka qabteen shaqo culus weeyaan maanta Soomaaliya waxay ka tahay qayb bay ka tahay UN Security Council-ka waa sharaf iyo cizi Soomaalida iyo Soomaaliya u soo hoyatay taasina waxa weeyaan waa dadaal loo galay i'tiraaf iyo aqoonsi ay ka heleen xagga diblomaasiyadeed tasaddexaadna maanta Soomaaliya ururka East African Community ayay ka qayb bay ka tahay waxaad ogaatiin yani natiijkaas oo dhan ama natiijooyinkaas waxay ku yimaadeen dadaal siyaasad maaragtay suuban oo hufan oo ku salaysan xikmad oo hogaamiyuhu uu yahay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kolka hambalyan leenahay shaqadii halka ka sii wad annaguna waan haddii aan nahay ururka midowga Afrika waxaan u jadiidinaynaa cahdiga aan leenahay Soomaaliya aan garab taagaynaa wixii dadaal iyo itaal iyo karti iyo maal ay ururku leeyahayna wala garab joogsanaynaa leena waxaan dareensanahay Soomaaliya taariikh ahaan kolka la eego aad iyo aad bay wax u tartay qaaradan bay wax u tartay ururadii bariga jiri jiray gobnabadoonka ahaana Soomaaliya taageeri jirtay Soomaaliya waxay ka qayb gashay dhexdhexaadis badan oo kaga qabo 70-yadii ilaa maanta Soomaaliya waxay leedahay door asaasiya door fiican oo maanta lagu ixtiraamo kolka annagu haddii aan maanta aan ku horeynay Soomaaliya waa abaal celin baan u joognaa meesha sidii runta abaalka baan celinaynaa talabaad sidii uu sheegay madaxweynuhu ciidan badan oo dalal badan oo Afrikaanka ka socdo oo TCC la yiraahdo askartoodii waa meesha ku dhimatay dhiiga ku bixisay naftoodii hurtay taasina qadarin gaar ay naga leedahay dadkii dhintayna dalalka TCC gun kama soo jeedaan Soomaalidu in badan bay u dhinteen kolka taariikh weeyaan kulleyba nabaddu waxay leedahay qiimaha bay leedahay in nafta loo huro ayaa loo baahan yahay kolka dadaalkaas waan sii wadaynaa cahdigaasi waan la garab joognaa Soomaaliya maantana ogaada Soomaaliya marxalada fiican bay socotaa sidii runta inkastoo
hadalladan social media-ga laga sheegayo ama jaraa'id oo dee xumeynaya sumcadda Soomaaliya ayaa jira laakiin ogaada annagu haddaan nahay ururkii midowga Afrika waxaan aaminsannahay inay Soomaaliya kadartan dhawaan ka bixi doonto oo madaxweyne Hassan Sheikh isagoo hogaaminaya dalkan ayuu ka saari doonaa. As the African Union, we need to continue to deploy the utmost effort needed to bring this post-ATMIS mission and to reach the goal of launching the AU SOMA mission by July 2025. There are still some challenges, financially speaking. There are a lot of logistic challenges, but I think the goodwill is here, the readiness is here. We are committed to improve the way we are delivering services as the African Union. I also would like to seize this opportunity to pay tribute to all the fallen soldiers, either from the TCC member countries or from the Somali Defense Forces. I think this is the price of peace and stability that they have paid with their own lives. And I also think that we need to continue and to pursue our efforts. The African Union will continue to support the Somali government to restore security and promote peace in Somalia. The African Union Peace Mission in Somalia is, as I said, in the transition period. And I also want to underline here that these challenges can be overcome, but we need engagement, we need commitment, we need the support of the international community. I will be engaging the international community and the partners tomorrow. I have already started in Addis Ababa to speak to some of our partners so that Somalia is not abandoned and Somalia keeps being the center of interest of the international community. Today, Somalia is a non-permanent member of the Security Council. Somalia is playing a key role at the international arena. So how come that today some of the partners are turning their back to Somalia? This is something that has to change, and we are, as the African Union, indebted to Somalia, and we are also the organization that is proud of having, its soldiers in this country with the collaboration of the Somali government. I would like to express my heartfelt gratitude to His Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud, and also pay tribute to his relentless efforts to bring back Somalia on its feet. And I think in the near future, we'll see that change, and we wish Somalia, His Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud, his government, a full success in the next steps forward. Thank you very much. Thank you.